shaaf laga deynayo nooc dadka noocaayana in la iska qabto oo fanaaniinta dhexdooda iska qabtaana waa muqadas hadii la iska qaban waayo Soomaa saasay baasho soconaysa anu sanadkan isaga leey 100 sano hadii ka soo wareegto noolahooda ma nooshahay meesha aan kugu arkaan ku waan kugu jira tagay taa xisaabta ku qoro ama wallahi oo billahi hatta haday lacag noqoto inaan ku bixiyo qofka ugu horeeyay nolosheeda qof inaan dhibaateeyo isku madeyn laakiin ninka ugu horeeyay ee aan adduunyada aanan deynin inta nool ee hadii ay noqoto 100 sano ka soo wareegtaan aan ku jira tagay taa hadaba ama caytan ama waxaad rabto samee war degdeg ah fanaanada Hodan Cabdiraxmaan ayaa dil u hanjabtay saygeedii hore ee Maxamed Aalta kadib markii uu asbuuci hore mehersaday fanaanada caanka ah ee King Jaamac Yare haddaba maxaa ku soo beega waqtigan inay Hodan Cabdiraxmaan u hanjabto saygeedii hore waxaana ku haynaa faahfaahin oo waliba hadii aad barnaamijka si fiican u dhuuxdo aad fahmi doonto waxa ka dhaxeeya Maxamed Aalta iyo Hodan Cabdiraxmaan balse marka hore fadlan daawada hadii aad ku cusub tahay channelkeena waa Yaabaysa Media subscribe saaro calaamada gambeelka ahna furo sidoo kale like sar videoga fanaanada Hodan Cabdiraxmaan ayaa leef ay soo gashay ku sheegtay inay dili doonto fanaanka Maxamed Aalta waliba si bareer ay u dili doonto oo aysan qarinayn waxa ay sheegtay hadii ay awoodi weyso xataa inay ayadu disho inay lacag ku bixi doonto xataa waxa ay sheegtay in familkeeda qof kamiduhu meesha uu ku arko ama soo qof qaraabo la ah oo dili doono Maxamed Aalta waxa ay sheegtay xataa hadii ay ka soo wareegto 100 sano oo soo socota inay sacafi doon hadaba maxaa ka dhaxeeya Maxamed Aalta iyo Hodan Cabdiraxmaan fanaanada Hodan Cabdiraxmaan iyo Maxamed Aalta ayaa waxa ka dhaxeeyay in muddo xiriir jacayl kaas oo aakhirkii ku soo gabangaboobay inay ku aqal sanadii 2014 wadanka Mareykanka waxaana si kale iyo laab ugu soo hambaliyay xidigaha geeska hatta rugtug soo degteen cawaba Hodan iyo Aalto خيدنك طبيب وهلي هذا يا عاد خيدنك طبيب وهلي القعيل كو قلقلا عاشقه كدوغسدا محبده كديرسدا درما قوله كودلدا اسناداده هيو النقضه وليه ديركاد غورينا لغا داهدري وسواس وديره كنبدغلا لكن waa dulqaadkiyo hadal dabacsanaanteed sidaaya laabaha caashaqo hadarare isku doonisbaati isku diirad kaliyo danta meel wada jira dareen kana wadaage oo dooro kala hela oo diin la kala hela ami dadowdaha 3 sano ka bacdi arooskoodii ayaa Hodan Cabdiraxmaan waxa ay ka soo laabatay wadanka Mareykanka iyadoo u soo ambabaxday halka iyo magaalada Muqdisho Hodan Cabdiraxmaan waxa ay ku qabsatay showgaas oo show aad u weyn ahay kadibna waxay u ambabaxday halka iyo Hargeysa halkii laga rabay inay ku laabato wadanka Mareykanka ayadoo la ogaay inay isqabaan Hodan Cabdiraxmaan iyo Maxamed Aalta oo aan loogeen goob ay u kala tageen ayaa mar qora waxa soo ifbaxday inay Hodan Cabdiraxmaan mursal muuse ka wadatay magaalada Hargeysa una wadatay wadanka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi halka oo ay ku qaadanayaan toobax wal dadka qaar ay la noqotay fajaciye ama kaag hadana Maxamed Aalta markiisii horeba wuxuu ahaa nin afgaaban oo kama uusan hadlin wax warana kama soo saarin meel uu ku furan ma uusan cadeyn laakiin waxa uu noqday mid afkiisa xirta ayadoo mursalna oo ahay markaas nin la afduubtay oo ay Hodan afduubatay maadaama uu lahay xaas hore iyo ciyaal Hodan Cabdiraxmaan dhagtala quma aysa siin dhalaacaynta iyo aareenta baraha bulshada ugu imaanaysa maadaama lagu ogaay nin qabay hadana ay nin kale toddoba kula jirto balse taa beddelkeeda waxay challenge gareeday xaaskii hore ee mursal muuse waxa ay ku tala gashay sidii idaaqada uga bixi lahayd dhibaato ugu weyn ee soo wajahaysay Hodan Cabdiraxmaan markaas waxa ay ahayd gabar miskiina ayaad ka dhacday ninkeedii oo saameyntii xataa oo Maxamed Aalta waxa qarasay saameynta Qatar Saliimo oo ninkeedii qasab uga soo wareegtay Hodan Cabdiraxmaan oo ay ku guuleystay isku daygeedii mursalna waa ay kala wareegtay fanaanadii masaakiinta ahayd ee Qatar Saliima waxa ayna ku laabatay wadanka Mareykanka iyadoo muddo yar kadib hadana ku soo laabatay magaalada Hargeysa halka oo ay waqti kula qaadanayso xaajigeeda mursal lama oga sababta ay hadda ugu hanjabayso Maxamed Aalta iyadoo aysan jirin wax fariin ah ama sabab wax muuqaal ah oo soo duubay Maxamed Aalta taa oo iyada wuxuu sheegayo ama sabab ku aflaga deenayo balse waxa jirtay in fanaanka Maxamed Aalta oo dhawaan guursaday waliba asbuuci hore fanaanada caanka ah ee King Jaamac Yare oo iyadoo la filayo in asbuucida soo socda ay dhigtaan aroos aad iyo aad u cajiib ah ka oo dadku aad u hadal hayaan baraha bulshada Hodan Cabdiraxmaan videogan hadda aan soo doono ay soo duubtay waxa ay si toos ah ugu hanjabtay oo u tiri waliba waan ku dilayaa oo naftaan ku dhaafinayaa
fanaanka maxamed aarto oo lacag baan kugu bixinayaa xataa waxay tiri 100 sano oo soo socda haddii ay noqoto xataa kuma day doono bal fiidiyogaas ila daawada. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح وناكسنا خياري ولا واحد اللي ما يابي بيروان يابي كودها marka hore qof aad aan ixtiraam weyn u hayo oo walaalkayaba ii furay midab baan kuu sheegayaa ayay hadday ay la socdo meel la iscay ma dhaantid kontonka youtube-yada iyaguba ku jira ee fanaaniinta aflagaadeeya waxaad dheertay iyo waxaad dhantahay ma jirto ma garatay ixtiraamka dadka tagtana waa laga wada tegayaa usoo aflagaadeynayo dadka noocaayana in la iska qabto oo fanaaniinta dhexdooda iska qabtaana waa muqadis haddii la iska qaban waayo soo maaha saasay baashu soconaysaa anuu sanadkan isaga leeyahay 100 sano haddii kasoo wareegto noolahooda ma nooshahay meesha aan kugu arkaan waan kugu jira tagaya taa xisaabta ku qoro hataa hadday lacag noqoto inaan ku bixiyo qofka ugu horeeya nolosheeda qof inaan dhibaateeyo isku madayn laakiin ninka ugu horeeya ee aan adduunyada aanan daynin intaan noolahay ee haddii ay noqoto 100 sano kasoo wareegtaan aan ku jira tagaya taa hadaba ama caytan ama waxaad rabto samee ama waxaad rabto youtube ka soo dhe ama adduunka facebook yada oo dhan waxaad doonto soo gali I don't care laakiin maalinta aynu nolol adiga aniga isku aragno ama aniga qof iga dhashay ama ila dhashay ama qof aan qaano oo family lahay meesha aanu kugu aragno noloshaada na garbahaaga iyaga saytaa xisaabta ku darso maanta waxaan aan sheekadan uga sheekeeyay halka u soo galiyeen codkayga u soo duubeyna taariikhda ku gasho saaxiib. fanaanada Kin Jaamac ayaa iyaduna kasoo jawaabtay hanjabaadan ay Hodan Cabdiraxmaan u geystay ninkeeda fiidiyowga xiga ayaan ku soo bandhigi doonaa fiidiyowga ay soo duubtay Kin Jaamac oo ay u hanjabayso uga jawaabayso hanjabaada Hodan Cabdiraxmaan. haddii aad sugayso fiidiyowgaas fadlan channelkan subscribe saaro calaamada gambeelka ahna furo sidoo kale fiidiyowga like saar ma santihiin halkani waa meel lagu soo bandhigo xogaha qarsoodiga ah fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir.